Sidee nolosha dadka taajiriinta ah ganacsatada waaweyn dhibaatada ay ku hayaan ummadda ama ganacsatada yaryar ee hadda soo koraysa. Qofka taajirka ah ama nolol jawi degan uu ku nool yahay ama nolol buuq ku salaysan oo deynta iyo qabiilka iyo isbaarada iyo canshuurta iyo qarracda ay u dheer tahay. Waa sidee wax bixinta dadka taajiriinta ah. Dadka taajiriinta ah saameynta ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا هاي ولكن مستر كلمتان أو إذا حلا كستو إنتهى ونكسان هلك أنا رسالة توا بيتكي فيسبوك أم يوتيوب أي مستر كلمتاني هذه أي تامر كورس أو نصاب وقت وحنقول أنا السود دو مستر كلمتاني كسود دو سبسكرايب شير لايكنا نوصار سيدا ساعتاني أيانتا امتحاني هيجا قفكي لصعود بارت تريجي سامبرويا ما أنتو حنكسو قادنا نرشة دتك التاجرين تاع نرشة دتك إلهي وحسيي واسيدي دبي دف محي قبان بوغما كفران جو دغنا ku jiraan waxay qabaan halkan iyaga jilina iyaga maqal iyo muuqaal ayuu ku soo gudbin doona like hadan ugu dhirgeyso aad iyo aad u maasatay ugu galno hawshan ku bilaawno dhibaatada haysato dadka taajiriinta ama qadeeyo waxaad aragtaa oo kaliya in ay joo degan baawur proofa baashaal iska jiraan laakiin dhibaato badan oo dhanka familka iyo dhanka ganacsiga dhanka nolosha ay ku jiraan ayaa aad iskaga jirto mid ugu horeyso الله waxay soo wacay gaari jidka aan diray oo safarka aan diray iikaab aan la hadlay hello Abdurrahman way warsaatay hay gaariga meesh mu ku halaaba ya isbaaran ma dhigtaa yaa idin haysta marka lacag $3,000 idin karama may leeyihiin bisminkiyo no 3,000 hadda inta ka keena 3,000 gaariga ku socday haye صح صح 3,000 marka diil waa 1,500 ugu yaraan waa inaan nasiisanay leeyihiin kawaran gawaaridii oo jidku ku jirto kuwii kale ay ka dambeeyeen ma la qabto mise idinka bisa adamanka ku dhacay warana hadda 3,000 ma hayneen iyo ma askar caadi ah mise kuwa oo saraakiil ah maxaa dadka horta meesha gaariga dadka haysiyaa waa kuwa qabiil waa miya kuwa qabiil waa miya oo jidka taagan ma hadda niyo qabiil haday tagto waxaa in qabiil loo tagay noqonaysaa nabadoonada iyo wixiina waa inay noqonaysaa $1,500 anaga hadda gaari kama bixin karnaa ay wax kala sheegaan صح igu dhiib telefonkooda bal war haysatiin caad ka warrama Soomaaliya ka tiin waa cidda marday wasfahmaynaa inay 1,500 anaga ma haynee 1,500 waxaa lacag ahaan intaasoo macquul ma gaariga shirkiisa intaas ma saarnee waxa ay sheeganayaan telefonkii aan soo galiyay 500 miya ayaa 500 diyaar waay gaarigaas ama hala siiyo hala fasaxo badeecadaasna iyadoo nabada meesheeda ha tagtaniyo gaariga qashashadka laga dhaaf saaxiibayaal 500 telefonkiina had kan waay hadda in ku soo tuuro insha Allah ay saaxiibayaal ay bisminkiyo $500 kula $500 inta keenaniyo $500 ma yani wallahi niyo dhibaata haysanyo gaari hadda safar u dirtid saan leh waay maana ilaahay gali nin baalkiya ku dhagan nin saana ku dhagan tuuga ku dhagan gaari intuu ka baxay dad kale ku dhagan wallahi niyo safarkan dhibaata ku qabna gaarida in iska dhaafi doona malaha wah ay gabadha isbitaalka u diray soo cus hello هاي ستاي عاد كور خير الحمد لله اسبتالك محاونا قليل كليس وسديد بغل ماليني بسمينك يا كاج اسبتال مان متقالي عدني كور رقيس كم حوالي أفر بغل يسدح بغل حقوق قلم مسك قرقريسي مركم مسكلها عشان سديد بغل كير مقالين ميدين بل هاي يسوى دراها إن شاء الله سكتورة بل هاي يافوز إن شاء الله هاي إن شاء الله هاي سديد بغل إسبتال إنا لله إسبتالنا حمر كويا dadka inay baartaan oo ay faa'iido kale ma balahaba $800 isbitaal kaligiisa
wax macquula ma aha bisminkii wah maanta nabadoonka cidda isoo wacoy nabadoonka cid muxuu iga rabaa bismillah ilaahu khayr sheeg bal nin maanta ii soo dhigteen kuwaan igaay nabadoon hay see tahay khayr leh alxamdulilah ilaah maadii goobta ganacsigaa joogaa dukaanka igu mow meeshaa joogaa ma imaan kartid miya sax maxaa soo kordhaa layidhi maanta dana qaaraan ma la iska rabaa maxaa jiraa layidhi sax meeqa qofaa la dili marka meeqa qof ay ka dileen qabiilka 5 qof diyada ma la iska rabaa ani keligii meeqa igu soo aada oo laga rabaa marka qaar ahaan igu soo qoray $6,000 $6,000 ani keligii ma lagu soo qoray bisminkii hadda waxay baaranaysiin markaa ganacsiga inay iga dumiseen rabti wax kale ma soo wadiinay $6,000 ninka inta kiina maxay nabadoon ma fuustaas ay ugu soo riyaanay ninka adiga waa qadaysaa uma qashin baash waa ka soo darteenay $6,000 qaana ani keligii ma igu soo qorteen hada maani wax ila wax macquul ah ka bixi karaa leeyahay 6,000 ma ka bixi kariye wax ii sheeganayo ay 4 baa iska bixinaa haye diyaar 4 hadda ku soo tuura insha Allah haye iyo la igu wareejiyay bis foosto kale lagu soo rino waxaan dadka aad dilaysan iska dhaafano ilaahay ka cabsadaniyo haye noqdon haye bisminki $6,000 anima iyo u shaqeeyay inaan ku dhaarsiisaa $6,000 warniyo waxa ganacsi hadaa furutid waxa nin walba wax ka rabo tuuga wax ka rabo nabadoona wax ka rabo waxa cid kale wax ka rabto wallahi billahi warar waay wiilkii dukaanka isoo wacay dukaanka goobta ganacsiga aan kula isoo halo hay saatay khayr sheeg ganacsi waa la xiraa yaa xirtayna canshuur la iska rabaa canshuurta ma anagu waa bixin canshuur waxna garabaa halka haye wixii sanadkii dhan la xisaabinaa oo la shaqeynaya canshuurta la iska rabaa ma lihi meelay ku soo sheegay igu soo qoreen $80,000 $80,000 sanadkii inta la shaqeeyay 80 hal mar arabnimo leeyihiin dukaanka u xirnaa iska dhaaf 80 anigu ma haynay ha u xirnaado ha iska xirnaado sidiisaba labadii wiil oo joogto waa la xirmaya hay ay mar u qabto marka waa ka baxsatay صح maaniyo anaa dad usoo diraya kuwa xildhibaana iyo kuwa iiji jooga usoo diraya iyo wasiiri waxaa u diraya arrinta waa la galaa 80 anaga ma hayne horta dhalinyarada oo xabsiga la dhigaa horta soo deydeen ka bacdi arkayna waxaa waaye 80 ma ka bixi karaan saaxib haye insha Allah haye inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un $80,000 ya kambaniga haloo xirto wallahi wareer wallahi ya waxa waa dawladdan sanadkii oo dhan lacagtu way kugu dhuray hal mar ay ka qaadeen daf 80 inta keena waa bixi karaan ma wala inay 80 bixineen معقول ما 80 والله كتير والله إلهي قرأت كتير ترى في الأجنسي وهي نيو تيكت كو نيروبي ميقاون سحو لو بول كنت مياه نيو حالك جو وي هاي لو بول كنت هدا كوسو درسا إيب سدك دقيقة بريس سبح ديارد بحيس وحاول أفكار قليك سحو حتى إيجر بلسي أيه موابحة عنه 80 ما هيسان 80 انت كين عنه نيروبي اسك انا سان وانا عنه توق وحكين نوضون وحكين اسبتان 80 دكانكا باي ما كبيك روش عنه قناعسين ويحرك انا موي والله بلا انا نسكر يلين نرشة دادك التاجرين تاع واسيدان حقيقة مكا ينشو يعطيه هيستو إن أي إسكبغاحان أو جو دقن إي باشار إسكجران وعكاوريسا rafaadkan kireedkan in ay maraan ku socono qodobkan kale kaas wuxuu ahaa qodobkan koowaad qodobkan labaad ku socono waa sida nolosha dadka taajiriinta
markii buuqi iyo qararaaca iyo isjiidka iyo waxaa waaye rafaadka laga soo baxo waa iska nolol jawi degan ah, qof isxalin karo, noloshiisa ku filan, familkiisa ku filan, waxaa wax kastoo markaas uu u baahan yahay samaysan karo, hadday gaari tahay, hadday dalxiis tahay, haddii nolol ay tahay, haddii inuu naag guursado ama 2 3 4 inuu ka dhigto, haddii uu boosas gadanayo, ayuu nolosha qofka bini'aadamka rabitaankiisa wuxuu u baahan yahay haddii xitaa siyaasad uu galayo ama doorasho iyo madaxweyne iyo wax uu tartamayo waa uu samaysan karaa oo lacag ayuu haystaa oo noloshiisa markaas dhankaas okay waaye waxaa waaye waa nin isku filan oo dunyada intuu joogo raaxaysan karo laakiin buuq kale ku furan. Lambar 2 kaasa ka dhigno. Lambar 3 waxaa ka dhigaynaa wax bixinta dadka taajiriinta waa sidee. Sidaan ognahay dadka waa taajiriinta isku mid ma ahan. Waxaa la sheegaa dadka taajiriinta ah boqolkiiba 60 dadka wax bixiya iyaga inay yihiin, laakiin 40 waxaa la yiri gacantooda saan waxba ma bixiyaan. War xitaa iyaga nafsooda wax ay cunaan ay iska masuugaan, ilmahooda ay ka masuugaan, ayaga iska masuugo wax bixinta dhankooda markii loo fiiro, qaarna wax lacag fiican ay bixiyaan, qaarna wax ma bixiyaan oo dhunta ay waxa isqabtaan. Waa sidii sheekadii geeljirka la sheegayo waxa soo intaasoo geel leh haddana macuus jeexan ka wato. Marka dadna waxay bixiyaan, dadna wax ma bixiyaan. Nolosha taajiriinta ee dad wax bixinta markii la yiraahdo waa iska sidaan. qodobka afraad duulaan gaasiyo oo naftana waxaan ka dhigaynaa insha Allah ganacsatada ama dadka taajiriinta dhibaatada ay ku hayaan dhalinyarada hadda soo koraysa ama ganacsiyada yar yar ama dadka raba in meel yar ay ka shaqeystaan. Koorta qofkan waa taajir oo lacag haysta oo malaayiin dollar oo dhowr milyan ah, marka adigoo hadda soo kacaysa haddii fikrad aad keensatay oo yar oo shaqeynaysa uu arko wuxuu isku dayaa fikradaas in uu isaga maalgeliyo oo adiga suuqa laga saaro. Dhibaatooyinka ugu badan oo dhalinyarada hadda ay wajahaan waa dhibaatooyinkaas ama ganacsiyada yaryarka ay wajahaan oo suuqa looga saaro waa sidaas. Shirkado waaweyn oo ku jiro oo markii ay arkaan meel yar oo wax ka samaysanaysid intay kula soo galaan isla markiiba ka saaraay dhag waa maalgelin la sameynaa adoo cirka lagu dul arkay fikradan aad keensaday adaa maalgelin yar u samaystay wax yar isku aadistay qaraabada tolkaaga hooyada aabaha wax ka soo aruursaday haddana ka bacdi markii la arkay in dhunqoysi leedahay dhag waa laga la wareegay waxa waaye cirka meesha waa la maalgelinaa waxa waaye suuqan laga saaro. Waa dhibaatooyinka ugu badan ee ganacsatada yaryarka ay wajahaan dhanka waxa dadka taajiriinta ama dadka lacagta haysto ay kala kulmaan ay kamid tahay. qodobka afraad duulaan gaasiyo dadka taajiriinta ama dadka ganacsatada waaweyn ee magaalada Muqdisho joogo ama Soomaaliya oo dhan joogo faa'iidooyinka lagu qabo waxa waaye qofka taajirka haduusan isaga lacag lahayn oo maraakiib intuu jeeno u diro uusan badeeco keeni lahayn dad badan maanta wax cuno ama shaqeysto ma shaqeysan lahayn sababtoo ah kunteerarka markii jeeno laga dalbo kumanaan kun oo dollar ku baxdo qofka asaag keeno jumlo keena ka bacdi waa laga sii jumleystaa ka bacdi waxaa dadkii tafaariiqa iyaga kala qaato oo qofba qayb u qaato qofba bagaashka badeecada raashinka bariiska burka sokorta saliidda ayu nooc qofka jumla ahaan u keeno. Markuu qofka jumla ahaan u keeno Soomaaliyeedka way ka sii qaataan deegaanadii iyo dalka oo dhan la sii kala geeyaa oo dad badan ayayna dukaamadooda iyo noloshooda minaha meeshaas ka maaraystay. Haddii uusan marka qof taajir jir lahayn ama qof ganacsato oo wax soo dhoofiso oo wadanka keeno uusan jir lahayn shaqadan dhalinyarada aysan ma haysan lahayn dad badan maanta waxa ay qadeeyaan ama wax cunana wax inkastoo arsaaqada Ilaahay uu qoray laakiin minaha jawi maanta ma u saxnaan lahayn oo dadka taajirka ah faa'iido loogu qabo ama ganacsatada waaweyn ee wax keento faa'iido loogu qabo ay kamid tahay. Ganacsatada Soomaaliyeed siyaasadda Soomaaliya iyaga ayaa jaangooyo iyaga ayaa wax allaala waxay doonaan ka sameeysta siyaasiga ay rabaan inay soo saaraan 2027 ama sanadka 2026 la joogo oo la rabo in doorasho la galo qofka ay rabaan inay soo saaraan waa ay soo saari karaan si ay u dhaxmarsadaan danta ay u leeyihiin bari si ay u gala sheegtaan oo dhahaan anaga shalay adoo waxba ahayn aan ku soo saarnay aan ku soo dooranay maanta waa inaan noo saxiixdaa dhulka u baahannahay waxa u baahannahay kambaniyada haday yihiin mid dalka duu yahay iyo mid dibadda. Ganacsatada Soomaaliyeed iyaga ayaa soo saara qofka siyaasiga iyaga ayaa soo saara qofka xildhibaanka iyaga ayaa waxa lagala tashtaa wasiirka ama nabadoonada xaafadda degan aad iyo aad ayna ugu taliyaan ganacsatada in ay siyaasiyiinta ay ku dhaxmilmaan saameyn ay ku yeeshaan sababtoo ah waxa lacagta bixinaya oo isku aadinaya oo hawsha isku dibrinaya waa ganacsatada ma ahan qofka xilka rabo.
qofka heli kara asaga waa lasoo dhisaa, meesha waa la keenaa, markii la keena ka bacdin wuxuu ku dadaalaa in dadkii shalay soo dhisay asagana danihiisa ama waxa iyaga ay rabaan uu u sameeyo. Qof kastoo u fiirso oo madaxweyne Soomaaliya ka soo noqday shirkadaha waaweyn ee waddanka waa ay ku milan yihiin oo kama marna iyaga ayaa maalgelin u sameeya oo intaasoo malaayiin doolar ku bixiya doorashadiisa sidii uu u soo bixi lahaa. Qodobkan dib ayaan ugu daray, ka raali ahaada, markii hore waa iloobay. Asalaamu calaykum. gabagabadii gunaanadkii intaasaan kusoo gabagabaynaynaa. Maanta waxaan falanqeyn ku sameynaynay nolosha dadka taajiriinta ama dadka Ilaahay wax siiyey, sida ay u nool yihiin, buuqa ku furan iyo dhibaatooyinka lagu qabo iyo dheefta ay ummaddu ay ku qabto iyo waxyaabaha iyaga maxaa la dhahay ay samaystaan waxbixintooda iyo waxyaabahaasaan ka hadlaynay. intaasoo kusoo gabagabaynaya taxanahayga haddaan soo daawan baarti 3giisu marooya 1 iyo 2 aan soo geliyey iyadoo laga hadlayo maxaa la dhahay nolosha geeljiraha, nolosha dadka maxaa la dhahay malaayga iyo kalluumaysiga sameeya. maanta waxay maraysaa nolosha dadka taajiriinta ah. intaasoo kusoo gabagabaynaya. wixii aragtidaada oo adiga kula habboon ama aan ka tegay adiga qaybta hoose comment kusoo qor. jaw waxaan ahay Mr. Kalmatani, guuleysta.